السلام عليكم. dadka telefoonada mashquul ku yihiin marka hadda waxaanu u joognaa waa soo dhaweynta ugaaska waa inaad toostaan kulligiin xagga soo fiiriya toosana mana lana socda si fiican marka waxa weeye farxadii iyo xoogaa maxaa ku dhacay waa la hurdaa ugaaska waa soo dhaweynaynaa waana soo koobaya hadalka anigu intii hadda la daba dhigayo ugu dambeeyay generaalku intii xajiin baan ka qabsaday marka intii baan ku raacsanahay xajiin sidoo isu daba dhigaa kulligiina waa ku raacsanahay ducadana intii ducaysay baan ku raacsanahay waxaan rabaa ugaaska maadaama de la duceeyay oo abtirsiinihii la sheegay anigu tala inaan siiyaan doonaya marka ugaaska talaan bixinaya ugaas Cabdilcasiis ugaas buur fuula anigu buurtaan bajacla uu fuulayo meesha uu fuulay aad baan ula haystaa buurta lafteeda marka waxaan rabaa ugaasku inuu ogaado mardi ugaas Soomaaliyeed tahay Soomaali oo dhan baad ismuta meel kasto aad joogtid Soomaali oo dhan baad joogta dadkaas oo dhaada isuma qabiil walba jooga adaa isuma marka ugaaska magaca reer hasaaro imaamada reer soo saaro laakiin reer Soomaali oo dhan uu ismu yahay marka taa ugaaska waxaan rabaa inuu og yahay laakiin waa kula dardaarayno inuu ogaado inaysan reerka kaliya u ahayn meeshuu joogaba inuu ugaas Soomaaliyeed yahay taas waa ku dhiirigelina waana ku sii xoojinayna anigu ugaaska waxaan siinayaa 3 talo iyo midaan ku ugu xoojinayo waxaan rabaa ugaasku inuu ka taginin value-giisa dhaqankii iyo gurigii iyo meeshii lagu soo barbaariyay wixii yaalay inuu ku adkaado inuusan ka guurin inuusan ka dhaqaaqin waayo gurigu waa jaamacadda iyo iskuulka ugu wanaagsan qofku ka yimaado marka value-ga asaga inuu ku socdo ugaasku inuu ku usan ugaasku inuusan ka dhaqaaqin value-gaas mar walba inuu u yahay marjac uu noqdo guriga uu ka yimid ugaaska waxaan kula talinayaa faith-kiisa belief-kiisa diintiisa inuu gacanta ku labada gacmoodba ku haysto iyo qalbiga kuna hogaamiyo dadka uguna xaqsooro kuna maamulo ugaaska waxaan kula talinayaa principle buu leeyahay qofka bini'aadanka wax uu asagu mabda uu garanayo oo uu ku socdo oo kaga duwan yahay dad badan principle-kiisa inuu ka gelin heshiis saddexda qodob waxaan kula talinayaa ugaasku inuu bargaining ka gelin inuu heshiis ka gelin ugaaska waxaan ka waaninayaa waa maqlaaya intiina way maqlaysiin inuu siyaasadda ka fogaado ugaas siyaasadda ka fogow siyaasadda isimkii kala waa la caayaa ma rabna inaa ugaas oo haya adoo noogu xaqana laga cimaamaday in lagu caayo ma rabno ka fogow siyaasadda waxaan waa ka waaninayaa waayo hadda siyaasaddii iyo markay dhaqanku isku milmaan dhaqanku wuxuu luus gareynaa value-giisii iyo waxaas inta aan sheegay intaas ayaan anigu talada ku darahayaa waana soo koobaya hadalka wabillahi tawfiiq aad iyo aad baan ugu hambaliyaynayaa ugaaska waxaan ugu hambaliyaynayaa inuu ilaahay xilkaas halkaan ka saarno aan ku imaamadnay ilaahay inuu ku xafido ducadana waa ku kabahayaa السلام عليكم ورحمة الله وبركاته